Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Waxaan maanta muuqaalkan gudihiisa ku soo qaadan doonaa qiso cajiib ah oo uu ka sheekeeyey ninka qoray kitaabka la yidhaahdo Majaanil Adab. Wuxuu yidhi, waxaa jiri jiray nin ganacsade ah oo weyn oo ku noolaan jiray magaalada la yidhaahdo Baqdaad oo ku taalla waddanka Ciraaq. Ninkan ganacsadaha ah wuxuu ganacsigiisa ka shaqaysan jiray in uu alaabo ka soo qaado waddanka India iyo Shiinaha iyo meelahaas oo kadibna uu markab ama doon ku soo raro oo kadibna uu ganacsi ahaan u keeno waddankiisa kadibna uu xaggaasna wax ka qaado oo xaggana geeyo. Marka dadka ganacsatada ah ama ragga ganacsatada ah waagii hore waxay samayn jireen caruurtooda waxay bari jireen ganacsiga oo ku tababari jireen si berri ka maalin iyaguna ay uga faa'iidaystaan ganacsigooda. Qof walba wuxuu ka shaqaysto ayuu dhaxal siin jiray caruurtiisa. Haddii aabbaha uu beeraley yahay, waxay u badan tahay caruurtiisuna in ay beeraley noqdaan. Haddii aabbuhu uu ganacsade yahayna, wuxuu ilmihiisa ku tababari jiray iyaguna in ay bartaan ganacsiga si berri ka maalin iyaguna ay uga faa'iidaystaan. Marka ninkan ganacsadaha ah wuxuu dhalay hal wiil oo keliya. Caruur oo dhan wuxuu ka haystaa halkan wiil. Kadibna halkii wiil ayuu wuxuu bilaabay in uu baro ganacsigii. Markaas buu intuu doon u soo iibiyey wuxuu ooga buuxiyey alaab uu ku ganacsado. Sidoo kale wuxuu u iibiyey addoomo badan. Waagii hore waxaa jiri jiray addoomo la kala iibsado oo dadka u shaqeeya. Wuxuu u soo iibiyey addoomo badan si ay wiilkan u caawiyaan oo shaqadiisa ugu fududaato oo wax walba ay ula qabtaan. Kadibna wiilkii ayaa doontii iyo addoommadii iyo dadkii caawiyaasha ahaa ee aabbihiis uu u diyaariyey intuu kaxaystay wuxuu ku dhacay baddii si uu safar ganacsi u aado. Kadibna waxay badda ku sii jireen ilaa iyo 9 maalmood iyadoo xaaladdu ay deggan tahay. 9kan maalmood iyo habeenadooda badda ay safarka ku jireen waxay ahayd mid aad u deggan oo jawigu uu caadi iska yahay. Kadibna 9kii maalmood markii ay dhammaatay kadib ayaa waxaa bilaabatay in baddu ay kacdo oo badda hirarkeedu ay kacaan oo dabaylo aad u xoog badan ay bilowdaan oo baddu ay bilowday in hirar waaweyn ay ka soo kacaan. Ugu dambeyntii doontoodii ayaa waxaa ku dhacday hir aad u weyn ayaa doontii intuu ku dhacay wuxuu u kala jajabiyey baalbaal ama doontii ayaa aad u kala jajabtay. Kadibna waxaa halkaas ku wada geeriyooday dhammaan dadkii doonta la saarnaa wiilkan markii isaga laga reebo. Balse isagu ma uusan dhimanin oo wuxuu qabsaday mid ka mid ah alwaaxyadii doonta ka haray oo sidaas ayuu biyaha korkooda u sabeynayay ilaa iyo in muddo ah. Kadibna isagoo badda hirarkeedu ay marba meel u tuurayaan ayaa ugu dambeyntii wuxuu hirkii siduu u waday keenay meel jasiirad ah oo badda dhexdeeda ku taala. Kadibna wiilkii markii uu alwaaxii siduu u waday jasiiraddii u soo dhawaaday ayuu alwaaxii ka degay oo jasiiraddii ku dhacay isagoo rafaadsan oo dharkiisii ay ka wada jeexjeexmeen oo dhar la'aan ah oo xaaladiisu ay aad u adag tahay. Kadibna isagoo halkii ku miyir daboolan oo halkii iska jiifa ayuu mar dambe hal mar suuxdintii ka soo kacay oo miirkiisii u soo noqday. Markaas buu markuu miirku u soo noqday wuxuu maqlay dad dabaaldegaya oo buuqaya oo durbaano garaacaya oo u soo socda dhankiisa. Ma uusan garanaynin dadkan waxa ay yihiin. Kadibna dadkii balse wuxuu dareemayay in dadkani ay soo socdaan oo ay dhankiisa u soo socdaan. Kadibna dadkii ayaa siday u soo socdeen waxay u yimaadeen wiilkii isagoo halkiisa jiifa. Markaas bay intay qabteen waxay u geliyeen dhar cusub oo qaali ah oo xariir ah iyo dahab iyo fiddo iyo waxay u geliyeen waxyaabo qaali ah ay gashtaan dadka boqorada ah loo geliyo. Wiilkii weliba uu yaaban yahay ma fahansana waxa halkan ka socda. Kadibna dadkii wiilka markay u labiseen oo dharkii qaaliga ahaa iyo taajkii iyo wixii ay u geliyeen intay qaadeen waxay geeyeen meel qasri ah. Qasrigaasoo ahaa qasrigii jasiiraddaas looga talinayay boqorka la dejinayay. Kadibna qasrigii markay geeyeen wiilkii waxaaba loo caleema saarayba in uu halkaas boqor ka yahay. Waxaa hareerihiisa buuxa dadkii wasiirada ahaa iyo kuwii la taliyaasha ahaa iyo ciidamadii dowladda u shaqaynayay dhammaantoodu halkan ayay ku dhan yihiin
isagiina waxaa lagu fadhiisiyey kursigii boqorka ee boqorka lagu fadhiisinayay. kadibna wuxuu arkay oday waayeel ah oo fadhiya meel xoogaa isaga ka fog, lamana hadlaynin, oo halkiis ayuu fadhiyey. kadibna wiilkii ayaa maadaama boqor laga dhigay oo meeshan boqortooyadiiba lagu wareejiyey, wuxuu dadkii hareerihiisa joogay ee wasiirada ahaa ka codsaday in dhammaantoodu ay bannaanka u baxaan, balse wuxuu odaygii weydiistay in uu isaga keligiisa u baahan yahay oo isagu uu agtiisa ku haro. kadibna markii dadkii kale ay fadhigii ka baxeen oo isaga iyo ninkii odaygii waayeelka ahaa oo keliya isku soo hareen, ayuu wiilkii wuxuu ninkii odayga ahaa ku yidhi, ilaah baan kugu dhaariyey, waxaan ku weydiinayaa, aniga ima taqaanaan, aniguna idinma aqaano, maxay tahay sababta aad sidaan iigu samayseen oo aad boqortooyadan aad iigu dhiibteen oo aad halkan ii fadhiisiseen maxay tahay? markaas buu odaygii wuxuu ku yidhi, wiilkaygiiow, jasiiraddan waxaa ka jirta dhaqan aan leenahay oo aan dadka ooga duwannahay. wuxuu yidhi, saddexdii sano oo walba jasiiraddan dadkeedu waxay boqortooyada u caleema saaraan qofka ugu horeeya oo badda ka soo baxa. 3 sano markii dhammaataba baddaas ayaa la aadaa, qofkii ugu soo horeeya oo baddaas ka soo baxo ama halkaas loogu yimaado ayaa inta la qabto boqortooyada loo dhiiba oo boqor loo caleema saaraa. kadibna wuxuu yidhi 3 sane markay dhammaato qofkii waa la soo qabtaa, doon ayaa la saaraa, dharkii iyo wixii dahabkii iyo wixii dhanna waa laga siibaa oo waxaa loo geliyaa dhar dhammaad ah. kadibna doon ayaa lagu ridaa, kadibna waxaa doonta ku qaada 4 askari. 4ta askari lagama badinayo, lagamana yaraynayo. 4tan askari ayaa intay qaadaan waxay geeyaan jasiirad meel fog ku taalla oo cidlo ah oo wax ku nool aysan jirin, oo biyo aanan laga helin, oo cunto aanan laga helin, oo wax halkaas yacni lagu noolaan karaba aysan jirin, ilaa ugu dambeyntii qofka halkaas la geeyo uu yacni baahi u dhinto. kadibna wiilkii ayaa intuu yaabay wuxuu odaygii ku yidhi, bal maxaad igula talinaysaa adigu hadda? kadibna odaygii ayaa wuxuu ku yidhi, maadaama aad igu tiri ila tali, waan kula talinayaa. haddeertaan adigu waxaad tahay boqor, oo dadkan oo idil adiga ayay kaa amar qaadanayaan, oo addoommadan oo idil adiga ayay kaa amar qaadanayaan, dhammaan ciidamadana adiga ayaa u taliyo, dhammaan wasiiradana sidoo kale adiga ayaa u taliyo, dhammaantoodu amarkaaga ayay ku shaqeeyaan. sidaas darteeda adigu aniga i amar, oo waxaan jasiiraddaas berri lagu geyn doono ama 3 sano kadib lagu geyn doono, waxaan kaaga qodi doonaa ceelal si aad halkaas biyo uga hesho. sidoo kale geedo ayaan kugu beeri doonaa oo aad wax ka cunto. sidoo kale shimbiro iyo xayawaano ayaan halkaas kugu tarbiyeen doonaa, oo halkaas si berri markaad halkii lagu geeyo aadan gaajo ugu dhimanin, oo halkii aad ugu noolaan karto oo aad nolol wanaagsan halkii ugu tagto. kadibna wiilkii ayaa odayga taladiisa ku farxay, wuxuuna ku yidhi samay sidaas. wuxuuna siiyey fasax dhammaystiran oo wuxuu yidhi amar buuxa ayaad u qabtaa in aad fuliso, oo dhammaan wixii aad u baahan tahay iyo wixii dowladda aad uga baahan tahayna waa diyaar buu ku yidhi, sidaas samey. kadibna odaygii ayaa intuu baxay wuxuu jasiiraddii ugu diyaariyey ceelal iyo geedo tiro badan iyo xayawaano. jasiiraddii wuxuu ooga dhigay meel lagu noolaan karto, halka awal ay ahayd meel aanan lagu noolaan karin, oo qofkii la geeyaba ama boqorkii meeshaas lagu tuuraba uu gaajo u dhiman jiray. kadibna 3 sano markii ay dhammaatay ayaa ciidankii ayaa intay u yimaadeen boqorkii ama wiilkan, intay lugta ka qabteen waxay ka soo jiideen kursigiisa. waa dhaqankooda ama caadadooda. 3 sanoba boqorkii xilligiisu markuu dhammaado muxuu ahaay soo bax iyo kan yeel iyo ma jirto, waa loo imaanayaa. ciidankii shalay isaga ka amar qaadanayay ayaa maanta intay u yimaadaan, intay lugaha ka qabtaan, kadibna kursiga ka soo jiidaya, oo dharkii ka siibaya, oo taajkii ka siibaya, oo dahabkii iyo fidadii iyo wixii uu xirnaa oo dhan ka wada siibaya. kadibna intay qabteen oo ay dhammaantooda ka wada siibeen waxay u geliyeen dhar dhammaad ah. kadibna doon ayay ku rideen, kadibna 4 askari ayay u dhiibeen oo waxay ku yidhaahdeen ku tuura jasiiraddii loogu talagalay. kadibna 4tii askari ayaa wiilkii intay qaadeen waxay geeyeen jasiiraddii.
jasiiraddii markii ay ka dejiyeen wuxuu wiilku jasiiraddii u tagay iyadoo meel barwaaqo ah oo biyuhu ay meel walba yaallaan oo cunto ay meel walba taallo oo geedo badan meesha loogu beeray oo xayawaanada nooc walba u baahan yahay meesha ay u joogaan ayuu odaygii ugu tagay andhehe wiilkii ugu tagay. kadibna wiilkii ayaa wuxuu bilaabay inuu jasiiraddii isaga noolaado oo uu ku barwaaqaysto oo uu geedihii iska cuno oo uu biyihii iska cabo oo meeshiibuu iskaga noolaado. yacni meeshii waxaa looga dhigay meel lagu noolaan karo, halka awal ahayd meel aan lagu noolaan karin. kadibna halkii siduu ugu noolaa ayaa maalinkii dambe waxaa meesha soo martay doon ganacsato u rarnayd oo u socotay magaalada Baghdad. kadibna doontii ayaa jasiiraddii ku degtay oo halkii ayay ku nasanayeen. kadibna subaxii markii la gaaray wiilkii ayaa doontii ganacsatada la soo raacay oo wuxuu ku soo laabtay isagoo nabad qaba oo caafimaad qaba. wuxuu ku soo laabtay magaalada Baghdad. qisadan markaan korka ka fiirino waa qiso laakiin waa qiso loogu talagalay in lagu cibro qaato. waa qiso u baahan in aan fasirno. qisadu waa qiso xikmad badan. waxaa la yidhi baddan uu wiilkan ninka ganacsadaha uu dhalay uu soo raacay waxaa laga wadaa caloosha hooyada. 9 maalmood ee uu badda ku sii jirayna waxaa la yidhi waxaa loola jeedaa 9 bilood ee uu ilmuhu ku jiro caloosha hooyadiisa. 9 bilood markay dhammaato kadib maxaa bilowda contraction iyo calooshii inay yacni hooyada inay iska riixdo oo yacni biyihii markii hore cunugu uu ku dhex dabaalanayayna markii dambe intay dilaacaan oo kadibna cunugii uu bannaanka u soo baxo ayaa dhacda soo maahan. sidoo kale 9kii maalmood markay dhammaatay kadib yacni hirkii iyo muxuu ahaay doontii oo la kala burburiyey waxaa lagu qiyaasay ama waxaa lagu tilmaamay inay tahay foosha hooyada oo kale ama markay hooyadu foolanayso oo ay dhalmada isku diyaarinayso. sidoo kale jasiiradda markii hore wiilkan lagu soo dejiyey muxuu ahaay dadkii ay joogeenna waxaa lagu sheegay inay tahay adduunyadiisa oo kale. maxaa yeelay cunugu marka ugu horreysa uu soo dhalinayo wuxuu dhalinayaa isagoo aan dhar wadanin oo waxba aanan haysanin oo waxa ugu horreeya oo markuu soo baxo cunuga uu sameeyaba waa in uu ooyo. waa sidii oo kale wiilkii markii muxuu ahaay uu baddii ka baxay oo jasiiradda uu ku degayba markii ugu horreysaba oohin ayaa ugu horreysay. kadibna dadkiisii ayaa u yimaada oo waxay u geliyaan dharkii oo yacni waa u dabaaldegaan oo waa loo wanqalaa waa loo waqlalaa oo waxaa magacaa loo bixiyaa oo waa la sharfaa oo waa la koriyaa oo waa la barbaariyaa. waa sida jasiiraddii yacni wiilka loogu sameeyey oo kale ayaa loogu tusaaleeyey. kadibna qofka markii la barbaariyo oo waqtigiisii uu dhammaado oo adduunyadiisa uu dhammaysto maxaa ku xiga? waxaa ku xiga in uu dhinto oo adduunyada uu ka tago oo uu qabriga u guuro. marka qofkii intuu adduunyadaas joogo u diyaar garoobo in uu markuu qabrigiisa galo wuxuu yacni ku raaxaysan lahaa wuxuu ku nasan nicmadiisii yacni jannadiisii qofkii u diyaarsado yacni way ka horreysaa. balse qofkii intuu ishalmaamo inta yarta ah oo yacni sanadahaas kooban oo loo shaqaynayo oo loo khidmeynayo adduunyadii dhaldhalaalkeedii iyo macaankeedii qofkii ku mashquulo oo yacni aakhiradiisii ama meeshuu ku dambayn doono oo iska halmaamana wuxuun tagi doonaa uun meel cidlo ah oo aysan waxba uga horreynin. odaygan wiilka la talinayay wiilka taladan siiyeyna waxaa lagu sheegay ama waxaa lagu tilmaamay in uu yahay qur'aanka kariimka ah oo kale. qur'aanka kariimka ah qofkii la tashado wuxuu tusiyaa waddadii uu ku badbaadi lahaa iyo yacni aakhiradiisii iyo waxyaabo badan ayuu tusiyaa. balse waa in adigu aad raadsata oo aad la hadashaa. isagu intuu yimaado kulama hadlaayo balse waa inaad adigu aad qur'aanka akhrisaa oo waxa ku dhex jira aad kala baxdaa. haddii aad akhrisato isaga ayaa waddada cad ee waddada aad ku badbaadi lahayd ku tusinaya oo kugu hanuuninaya. sidoo kale jasiiradda labaad ninkan la geeyey markii boqortooyada yani laga siibay ama laga qaadayna waxaa la yidhi ama waxaa lagu tilmaamay inay tahay qabrigiisa. qofku intuu yacni muxuu ahaay qabrigiisa ku jiro wuxuu isticmaalayaa ama wuxuu ku nicmaysanayaa wixii uu intuu noolaa uu soo hormarsado. qofkii halkaas wax u hormarsado barwaaqadii wixii adduunyada uu ku diyaarsaday ayuunbuu halkaas ku helayaa. sidoo kale kuwii agtiisa joogay ee wasiirada ahaa iyo addoommada ahaa iyo kuwii u shaqaynayay waxaa lagu sheegay inay yihiin dadka yacni muxuu ahaay hareerihiisa ku nool ee isugu jira muxuu ahaay asxaabta xunxun ee isugu jira kuwa munaafiqnimada iyo xumaanta baraya iyo kuwii muxuu ahaay adduunyo iyo shahwaadkii iyo wixii iyo shaydaankii iyo naftii wixii iskugu jiro ayaa qofka ku hareeraysan.
marka qofkii kuwaas intuu yacni iska qabto kadibna aakhiradiisa u shaqaysto waa uu badbaadayaa. Balse qofkii kuwaasi ay muxuu ahaye ka tambadiyaan oo ay ka qariyaan in uu aakhiradiisii ka fekero oo uu wixii meeshuu ku dambayn doono iska sii wanaajisto, qofkii laga mashquuliyo meeshaas waxba uma yaalaan. runtii waa qiso cajiib ah oo lagu talagalay in lagu cibro qaato, waana xaqiiqda dhabta ah markii la fiiriyo qofka noloshiisa. inta badan nolosheena waan ku kedsoonnahay inagu, laakiin xaqiiqatan markii la fiiriyo qisadan iyo nolosheena markaan isku fiirino aad bay isugu eg tahay. maxaa yeelay qofku intuu nool yahay haddii uusan aakhiradiisa u shaqaysanin, berito waxaa u dambayn doonta shallaay iyo yacni nadaamo aanan dhammaanaynin oo xilligaasna aanan waxba taraynin. balse qofkii hadda intuu nool yahay oo naftu ay ku jirto ku mashquula in uu aakhiradiisa dhisto oo uu hormarsado oo sadaqo baxsado oo cibaadada badsado oo wanaagga badsado, waa qofka beritoole qabrigiisa markii la geeyo muxuu ahaye qabrigiisa nicmadiisa ku nicmaysan doona, oo qabrigiisu wuxuu noqon doonaa beer ka mid ah beeraha jannada. qofkii aanan waxba u diyaarsaninna siduu rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam inoo sheegayba wuxuu qabrigu ku noqon doonaa god ka mid ah godadka naarta, walciyaadu billah. waxaan filayaa qisadan in aad ka wada faa'iidaysateen. ha iloobina muuqaalka inaad like saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay, fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirageliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. hada wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.